أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي. كيف نخشع في الصلاة؟ سيدي إنه قلبي وسو جيدنا 5 دقيقة أما 7 دقيقة أما 6 إنه إلهي تبارك وتعالى أتكرينه وحينه كودني وشلي إنه يضرها بعاودني أمثلة حية عن السلف الأمة تصاليال لقد قضينا الصحابة دي التابعينتي ما أنت وحن ربا إن لبقف أوكلية بل صلاة دودو سيدي أهيد أين كبرارنا ومدي وصحابي وسعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه إننا عالمه والشيخ الأورنجري حاتم لبدا تصالي وحن تصالياش أسو قادنينا بني آدم كسيدي سبا وحي وحكو فهمي كران marka loo sheekeeyo qof iyagoo kala ah iyo sidoo u sameeyay saxaabaduna ilaahay markuu tilmaamay ambiyada ilaahay wuxuu yiri fabihu ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum muqtadi kuwaas waa kuwa ilaahay hanuunshay ee hanuunkooda ku dayo waxa tusaalaha koobaad u yahay Sa'd ibn Mu'adh saxaabigaas hadal ajab badan buu sheegay wuxuu yiri fi 3 khisal waxaa igu sugan oo ilaahay isiiyay 3 arimood law kuntu fi sa'iri ahwali akunu fihinna la kuntu ana wuxuu yiri 3 arimood ee ilaahay isiiyay hadii xaaladahayga oo dhan ay aan sida noqon lahaa waxaan noqon lahaa yaani qofka dadka ugu wanaagsan 3 qodob maxay yihiin koo wuxuu yiri ida kuntu fi salati marka aan salaada ku jiro la uhaddithu nafsi bighayri ma ana fihi naftayda ugu ma sheekeeyo wax aan ka ahayn taa aan ku dhex jiro oo salaada mar haddaan salaad bagalo wax aan salaad ahayn oo aan ilaahay hadalka iyo atixiyaadka iyo quraanka iyo ducada wax aan ahayn naftayda ugu ma sheekeeyo waa qodobka koobaad saxaabiga سعد بن معاذ مر بعد وحيري وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق هدي أن مغلو حديث نبي محمد كيم عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله محمد باسدا يري أما سدا سبيي هل مرنا قلبي جيغا وحشكي كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وركيس غضب كسد هذا وحيري وإذا كنت في جنازة مركا أن ميد لجوجو قفل حبالي أما لقيت كريو أما لآسيو لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها نفتي إذا أغمشك يوحكله إلا وحن كفكرا نفتا ميد كا حباشا مركا الله ديغو waxa lagu oranayo iyo waxay ku jawaabayso su'aalaha la weydiinayo bal fiiriyo walaaliya su'aalaha qabriga man rabbuka waman nabiyuka wama diinuka wax yar ma aha umad badan baa gafi doonta kuwa ilaahay nagu daro uu yiri yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah kaasi waa saxaabi kamida amthilooyinkii aynu wadnay bal sheekhi Haatim la oran jiray fi wuxuu yiri markaan salaada ila laga bilaabo markaan salaada u kacayo ila inta tukada 12 qodob baan sameeyaa buu yiri ilaahay baan kugu dhaarshay bal 12 ka qodob dhageyso la'alla allah alla uu ka dhigo tabaaraka wa taala dadka wanaaga sameeynaya wuxuu yiri koow hada sheekh al-aalim rahimahullahu taala rahmatan wasi'a wuxuu yiri koow salaada ugu horeyn أقوم بالأمر
waxaan ugu istaagaa buu yidhi salaada amar waa waajib ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dadka mu'miniinta u faray waxaan istaagaa buu yidhi salaada anoo amarkeeda iyo waajibkeeda aaminsan amar ilaahay inay tahay baan u kaca kow oo markaan soo kacayaba inaan farad iyo xaq iyo waajib isaaran aan gudanayaan u soo kaca qodobka labaad waa amshi bilkhashya haddaan guriga ka soo socdo ama meheradayda oon masaajka u soo socdo amshi bilkhashya cabsi baan ku soo socdaa eega anoo cabsanaya yaa masaajka ilaahay soo aadaa salaada waxaan u soo dhaqaaqaa iyo anoo baqaya qodobka saddexaad 12 qodob tirso qodobka saddexaad wuxuu yidhi wa adkhulu binniya salaada iskama gala niyad baan ku galaa iskama galo caadayga ma aha laakiin niyad iyo qalbi soo jeeda ayaan salaada ku xidhaabiyo ku gala qodobka afaraad wa ukabbiru bilcadama salaada waxaan takbiirtaa oo aan salaada xidhaa bilcadama ay maca alcadama anoo weynayn markaan leeyahay allaahu akbar ilaahay baa weyn waxaan salaada galaa anoo soo xaadirsaday oo qalbigayga u camiray oo u buuxiyey oo uu ka buuxo cadamatu rabbi tabaaraka wa tacaala allahaan hor istaagayo cadamadiisa iyo weynaantiisa ayaan soo xaadirsadaa waa arrin casjab badan allah aad hor istaagaysa waa kee rabbigaad la hadlaysaa waxa weeye faqaysaa waa kee qalbigaan ku soo xaadiriyaa buy qodobka ku xiga wuxuu yidhi shanaad wa aqra'u bitartiili waatafkiiri waxaan u akhriyaa qur-aanka ama adkaarta ama salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha salaada dhexdeeda ku jira bitartiili waatafkiir qur-aankana tartiil iyo tafkiir baan u akhriyaa adkaarta iyo dacawaadkana aanoo kala dhigdhigaya oo aan iska boobsiinayn oo aan faatixada iyo qur-aanka ee boobsiinayn atixiyaadkaan bulbulinayn oo macnaheedu aan ahayn markiiba salaada iga rida anoo tafkiir tartiil iyo tafkiir baan ku akhriya waa ku fakeraya waxa qur-aanku igula hadlayo waxa qur-aanku iga sheekaynayo iyo waxa ilaahay weydiisanayo qodobka lixaad wa arkacu bilkhushuuci waxaan ku rukuucaa buu yidhi khushuuc anoo aad iyo aad isu lulligaya oo khushuuc qalbigayga ay buuxisay ayaan khushuucaa wa asjudu bitawaaduci qodobka toddobaad waxaan ku sujuudaa anoo ilaahay tabaaraka wa tacaala isu miskiininaya oo aan kibir lahayn ayaan wejigayga dhulka raariciyaa oo ku tuuraa buu yidhi wuxuu yidhi waajlisu litashahudi bitamaami atixiyaadka si dhammaystiran baan ugu fadhiistaa anoo aad moodayso inaan doonay inaan boodo oo faraha hore ku fadhiya uma fadhiistee atixiyaadka sidii nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ayaan ugu fadhiistaa oo si dhammaystiran buu yidhi wuxuu yidhi wa usallimu binniya waxaan salaada ka baxaa anoo aan wax weeyaan niyeysan salaada kama baxe markaan taam yeelo intaan niyeystaan salaada ka baxaa buu yidhi waxaa laga yaabaa qaarkeen inaynu salaada inagoo assalaamu calaykum ta unaynu ka war helno ayaaba dhici karta wuxuu yidhi waxa weeyaan wa akhtimuhaa bilikhlaasi lilaahi caza wajal waxaan salaadayda ku soo gunaanadaa buu yidhi oo ku soo khatima ilaahay dartii inay iga noqoto tabaaraka wa tacaala intaa kagama hadhin qodobka 11 wuxuu yidhi wa arjicu calaa nafsii bilkhawfi akhaafu an laa yuqbala minii wuxuu yidhi waxaan laabtaa naftayda waxaan la laabtaa iyadoo ay ugu sugan tahay cabsi aan ka cabsanayo tukataya ma laga aqbalay bal halka aad u dhegayso walaalayaal waxaa laba u dhaxeeyaan oo waxa weeye kala duwan ficilka inaad samayso tukato walaalayaalo ama camalka inaad samayso inaad sadaqaysato inaad xajido inaad waxa weeyaa khayr sheegto iyo in lagaa aqbalaa oo ilaahay uu ka aqbalaa waa kala laba ogow innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu camalkooda aqbalaa ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala laga ansixiyaa dadka cabsida iyo ilaahay dartii iyo qalbi khushuucsan iyo qalbi nool ay waxa weeye ka soo baxdo qodobka 12
انت كليك كما هربوي وحير واحفظه بالجهد الى الموت صلاه وحان كو الى يريد دال ان كد داليو الى اي نفط ايغا بخدو الى دمشديده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين موضوع ان 5 دقيقه كسابسنا كيف نخشع في الصلاه الله انو انفعه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد